qola wixii yiraahdeen saddex wadaad masaajid khudba ka akhri jireen ninba jimcu leeyahay jimcadoodu waa wareegto mid marka waxa la yiri islaanta magaalada ugu quruxda badan oo qaba khudbadiisa markii la soo gaaro wuxuu ka hadlaa zinada dhibaatada ay leedahay ay indhaha qadal basarka la sameeyo شو مزينة ومعلوم والبخدود يسمر كي سوق قارتبه وهالكاس أوصي تلا أسبوع كار أوصي ديار سنته إن حل الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهالكاس لسه تاجيه نكلنا مجالده وهم تبذيها للودات ككلا مركز شو معناها السرقة اللي بعتها اللي ذو لسه تاجيه سجن حولها إسلام هلا ضعفه قفك حلاش أنا متى الدعاء دي إلا أجيبه معلوم بهالكاس لسه تاجيه مد كصدحات نوحة اللي يرواني كمجال وفقير سوا صدقات فضل الله ولا سوى تاني سين مرجع حد يرتاح شريف كي حوجا يروح كده حق الشيء قرية سما جدي أنا من علماء إنه رجع إنه قدام بيا مركب روح يري كلمة دي مدة أن تثبت الله هذا نوحة كسي عاصي عيد البسوي استكتبه هذا تيسير وقت أنت كفى نمك كلا سو استاجي دون أي هذا والله يقول كن يوم بدل هذا نك يقول سنة أبليكاشن كالعكس من غير هذا مركب فكرك حاجة سياسة حاجة هذا تيسير حاجة سالسوا هذا سيو ماشي وحايلة قلي وركي الشريف وآدم رنتي وقول رياقي إيوه ولا لها تيسير سيد العبادة أفضينا يعني إن أرمى يقول كان الله فضي مركب آدم نسولوين لنا مشروعا رنتي فضيت العبادة وحان كل دار ما يا ولا لهن أستاذ نوري أستاذ نور الدين وجهريو إن يعني دتكي لهراء أو لافظ يعرميه عبادة أو حجك يعمره وجهريسه وأعمال كنت أدو وين والله سمين كرا لكن وحيابها مشقة اللي بعتقد كتير حيتها هاي أدي حمو لقى صور شيء السنة والباء أرمى حجك مركز هذه أتقول بوليستان سيدا الشيكتان إلى إن الدبس عنا إنسان دتك أو ودانو سفع عن وخد مين إنسان وإلى هوتيل يدقى يعني إلى أعماش يحج كوان أقول حتى إن لبرأس الشيخ محمود إبراهيم سولة وهرب يسمي أرنت أداك بوليستان ومدوا يدي محلين دونتا أديك جيلونا وحوا يزدبجوا ونقدنا إلى هنا أجر بكسير دونا ومدنا ويدي عاي دونتا هذا ما سنتي السلام عليكم. عبادو عصر جمعة جوجناية هورت أمورها مسلمين تودنا الله تيسير يامين ده dhalinyaradan iyo culummadan iyo ganacsatadan isku jirto barnaamijkan soo abaabulayna ayagana hawshooda Allah taysiiriyo ka soo qaybgalayaasheenana xajjoog iyo umr joog Allah naga dhigo waagi hore waxa la isugu duceyn jiray sabjoog ziyaaro joog malaha inuu qaraabto umrigiisana dheeraado ayaa muhiimadu ay tahay maxaa yeelay marka haduu mid walba joogo macna tiis wali waa dhiman tahay marka anna taa waxaan ku bedelaynaa xajjoog umr joog Allah naga dhigo marka runtii hadaan soo ururiyo aniga su'aashii wixii kulli hore baa looga jawaabay Ustaad Yunis iyo Sheekh Umar iyo barnaamijka hore u wada cadeeyeen waxaan rabaa inaan warkayga ku ururiyo tusaalooyin gaaban inaan ku ururiyo horta marka koowaad cibaadadan aadideeda الله فضيه هرتور عبادة فضود معها ما كان لغها المداس تيسير مقع انتو كل بودو يريد الله بكم اليسر آية داس انتي كجرتا محل غير لاي صونك هذا قاعدة دي سواء تقنان سيو آدكتها مركو حج كورت وجهاده هرت ما كان لغها يقفك موقت هذه مركو مقع وكلمه أما معناها وكلمه واللمايا وحنو مفهماي دينت لما حجين كره ليه قف دين دد ka qaatay loo haysto deentayda inta eedig meelna ma aadeysid deenta xaq naasad akoor xaq ilaahay laakiin nin marka hore waa ku deymina kule raalina kaaga oo ku sugaaya wax iskaal ku jira malaha adduunyada waa loo deensada aakhiradan in loo deensado wax baas oo leedahay malaha marka ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqna waafajiyo mid ugu weyn amaanada inaad gudataan raga oo maxad maartay haleel iyo taysiir amaanada saad ballan qaadeen in aad u gudataan ummadan aad u taysiir dhinac walba aad uga taysiirsan kaliya tagida iyo maxad maartay qarsh oo taysiiriya akhlaaqda iyo maxad maartay qaar xataa wixii nasiya si aad ajar weyn u kasbataan wixii in insha Allah isdhimi maayaan kor ay aad doontaan marka insha Allah ta'ala arrinkan arrin adduunka kaliya ka dhiganina arin aakhiro kulara oo ku dara insha Allah ta'ala
allah idin waafajiyo runtii waa arrin mar walba guul ah in dadkii dad wax u saxa la helo khidmatu taysiir waxaan ilaahay ka rajeynaynaa subxaanahu watacaala daahfurka khidmatu taysiir la daahfuray magaceeda sida uu yahay inuu ilaahay ka dhigo subxaanahu watacaala yuriidu allaahu bikum alyusra waxay noo noqotay kelimadii na soo jiidatay marka maadaama magac fududeen ah oo tafaa'ulkana islaamka sidiisaba uu daneeyo aan meesha ku qorannay shaqada aan rabno u soo istaagnay in laga shaqeeyo la rabana shaqo aad iyo aad u culus ay tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa aamiinta aad noo dhahaysaan inuu noo aqbalo shaqadaas inuu ilaahay nagu guulaysiiyaa shaqooyinka marka la guda gala Soomaalidu waa dad af Soomaali badan haddii wax ay ka rabeen iyo kelimada meesha kuugu taal haddii ka waayeen magac bedelkeeda ku qoraya marka kuwan magac bedelan oo cagsi ahaan loo qoran wal cagsu saxiix ay yiraahdaan xirtan kuwan la dhihino taysiir sidee yiraahdeen waa taysiir ahaato Allah naga dhig hanaanka qof lagu shaqeynaa inay taysiir ka noqotaa markuu halkan ka baxaya ilaa uu ka soo laabanaya khadamaadka isdaba yaalo tigidkiisa iyo fiisihiisa iyo gaarigii loogu soo dhaweey lahaa madaarka uu ka dagaayo ilaa umraysiinta la umraysiinayo ama ziyaarada mid lagu hormariyaaba iyo soo celinta la soo celinayo iyo hoteeladiisa iyo kulli inay taysiir ay noqotaa oo shaqo fudud dadkii qaar hotel kireyso dadkii soo dhaweyn lahaa dhibaatooyin badan laga la kulmay maadaama sanado kala duwan aan hadda ku laabtay culeysyadii jiray markay ii muuqdeen waxa hami iga galay shaqadaani inaan ma taqaana aan gali karno aniga iyo niman waaweyn oo ganacsatay group aan ku wada soconno fikirka markaan isku ka keenay waqtiga munaasabka u ah in aan shaqadan aan furno oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto hawshaani ay suuragal u noqotaa mid ay ka faa'iideysan karaan kuma xirna Muqdisho kaliya iyo Hargeysa iyo Puntland iyo dhinacyo kala midna kuma xirna ilaa kuwa Kenya joogo Ethiopia kuwa Yurub iyo Mareykan joogo fiisooyinkooda inaan halkan uga soo saarnaa soo dhaweyntooda iyo tigidiyadooda iyo safarkii ay macnaha soo safri lahayn inaan u fududeyno ayo barnaamijkaani oo u fadhiya sidaasi marka dhinaca maadaama qayladii xaramka ay tira badatay oo dad khibrad u leh iyo dad khibrad u lahayn ay ka wada shaqeeyaan shirkadeena ahaan maadaama niman culimo ah iyo mataqaana iyo ganacsato isgarabsatay aan nahay isku dhex jiro in aan wax ka bedeli karno dadka macnaha Soomaaliyeed khaasatan Muqdisho aad ay ugu dhibaataysan yihiin xagga wadista dadka kale waxa arkaysaan gruubyo isla socdo hal qof hogaaminayo dhinac waliba oo mataqaana Maka iyo Madiina iyo si loogu talagal acmaasha u dhameeyay